أيضا لمقلة أديك بعد البرنامج اسمعي هذا مثلا هاي kulanti wacan oo wanaagsan aqyaartahooda naga daawanaysa meel walba caalamka aad ka joogtaan iyo goor walba aad joogtaan waa mar kale barnaamijkeeni suugaanta iyo Somali Cable oo hadaha kale aad ka daawataan stuudiyaha magaalada tan London barnaamijkan ayaan badanaa waxaan ku soo qaadanaa suugaanta iyo qaybaheeda kala duwan annagoo markaasi cazuuna hadba dadka waaya arag ee khibradda u leh suugaanta Soomaalida caawa ayaa halkan waxaa marti igu ah oo aad si toos ah uga daawan doontaan barnaamijkiisa Professor waasuge oo isagu kamid ah bahda warbaahinta TV-ga qaranka kana shaqeeyay wax badan masraxiyada iyo masraxa waasuge waxa uu sameeyay farbarashada af Soomaaliga wuxuu wax ku leeyahay barnaamij kale yiraahdo waaya arag oo ka baxa TV-ga qaranka wuxuu wax ka qoray naxwaha af Soomaaliga caawa ayuu marti igu yahay stuudiyaha magaalada London waxaana ka wareysan doonaa masraxa iyo masraxiyada isagoo markaasi khibrad iyo waaya arag aad u weyn leh ayaan caaw waxaan doonayaa halkan inaan wax badan ka weydiiyo dhanka kale waxa xusuusin iga mudan in xagga telefoonka aad naga qayb qaadan kartaan barnaamijka oo markaasi su'aalo aad ka weydiin doontaan hadba sida aad u aragtaan masraxiyada iyo waliba tiyaatarka marka ugu horeyso Professor Waasuge ku soo dhawow TV-ga Somali Cable Cabdirasaaq Isbaaye waad mahadsantahay adiga bahda Somali Cable farsamadan yani noo hagaajisay waa ku soo dhawahay TV-ga Somali Cable aan doonaya cawda halkan inaan ummadda Soomaaliyeed uga ifiyo gaarsiiyo muddo badan yani waxyaabo aan la taaban 3 sano ka hor laakiin aniga barnaamij ka sameeyay yani masrax iyo masraxiyada ama teatarka ama riwaayadaha sida loo yaqaano qaabka loo jiro qaabka loo sameeyo marka aad iyo aad baad u mahadsantahay waynu sheekaysan doonaa waa gartay aad u mahadsan tahay inaad naga aqbashay inaan caaw halkan ku waczuuno oo wax ka weydiino waay aragnimada u leedahay masraxa iyo masraxiyada marka aan ka hadlayno suugaantu waa hawlo badan tahay hadal iyo hawraartii marka wax kala baxaysa ma aragtay gabayadii guuraawgii heesihii masraxiyadii riwaayadihii iyo fankii runtii in mudana waxaad ku soo dhex jirtay hanaankan masraxiyada iyo sida loo jilada loo sameeyo marka su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya caaw waxa ay tahay waa maxay masrax ama tiyaatar kismaayo aad baad u mahadsantahay runtii waa su'aal wanaagsan waa maxay masrax waa maxay tiyaatar haddii aan damco inaan ka hadlo arinta waxaa laga yaabaa in 3 saac oo kale inuu ku qaadato haddaan ka soo bilaabo tiyaatarka meeshuu ka bilowday oo ah yani Greegii waqtigii Greega yani qaabka tiyaatarka u bilowday Aristotle iyo gurigooda Empedocles iyo dan Romaankii Sinka ka dambeeyay يعني runtii teatarku marka su'aashaada u soo noqdo teatarku waxa uu ku soo bilowday dhismo kala duwan qaabab kala duwan buu lahay xilliyadii Greega teatarku waxa ay meel furan dadka ay hor fadhiistaan oo aan darbi lahayn oo dhisan kaliya dusha dadka inay soo istaagaan jilayaashu hal jila lagu bilaabay waagii hore waqtigii Greega hal jila wax jila wuxuu sheeka dhan buu jilaya وقصله وحجودبلنا وحساس وكلا كبعد وحو يشتاتر كهذا الدربية على دسي كبعد هذا سو سعد وقت رومان كوريق بالا سميه كبعد سو سعد هذا وريق جود بالا وذهله مركا جريج روح اللي جيران تياتر كوا يعني ماشى يعني أي كفكر جبيان تدوينه مركا صوت شقيستان مال انت سو حمالان وحدتك وبعدين هذين كي مركا اللي قارو إن السنة ما قلبتي إني هلان مالي كفكر جبيان الرواية اللي أقول لك مركا وحكى له تياترك وياهي وقت كاس لقى صوب اللابو يعني قلبك وجو عبقريسن قلبك يعني وجو وين حق ورباهنتو أهنجر وح والله ما شاء الله وفريمها الوجود وفاك حتى وفريمها الوجود بيه ودك وح الله وشيء مركا أنا أصلا نقولنا حق التياتر أو جلست صدا شيكتي وصامري مرحلة ذاك الدواني وقتية فربضن دورك أن كلهن كصومالي أهان مسرحية
marka su'aal wanaagsan marka Soomaaliya markaanu nimaadno marka teatarka wuxuu kale Yurub iyo America iyo Asia iyo kulli siyaalo kala duwan marka waa fiday waa marka Soomaalidu markaan dib u eegno waxaan teatarka la yiraahdo ama masraxa yani runtii annaga waxaynu leenahay saddex hab dhaqan dhaqaale oo aynu lahayn markaad eegto oo yani xoolo dhaqato iyo kalluumaysato iyo beer qodato ama beeraley saddexdaas hab dhaqan dhaqaale yani ma garanaynin teatar ma lahayn ayaga laakiin waxay lahaayeen waxa la yiraahdo cayaaraha hidaha iyo dhaqanka marka cayaaraha hidaha dhaqanka ayaa waagii hore ayaa waxay matali jireen habkii teatarka kale ah marka cayaaraha hidaha dhaqanka markaad eegto marka la tumayo cayaar ka soo qaataanta ha noqoto walasaqa ha noqoto baxley ha noqoto waxay leedahay daawadayaal xagga ka soo jeedo iyo jilayaal iyo mukhrijkii directorka oo kala habeynaya dadka qalabka muusikada jib iyo jamba la yiraahdo ay lahayd halkaasay ka soo bilaabtay laakiin markii xurriyadii iyo isticmaalkii uu noo yimid oo waqooyi galbeed iyo koonfur laba teataraa ka bilowday fikradad waxaa la helay teatara ah marka waxaa bilowday in yani ay sameeyaan kooxa yaroo isu tagay ka soo jeedo ciyaaraha hidaha dhaqanka waa meesha teatarkeena ka soo kacay way markaad eegto iyo fankeenna yani waxay sameynayaan riwaadi yar oo ka soo horjeeda gumaysiga sida koonfur iyo waqooyiga saasoo ku dhashay laakiin marka dhisme ahaan la yiraahdo saadkoo kale hadda xamar oo kale waxaa la dhisay talyaaniga wuxuu dhisay meel la oran jiray teatro Duna waa fiyoorihii hore akademiyada fanka cilmiga suugaantiga meeshaasaa teatar ahaan jirtay waagii hore iyo meel la yiraahdo teatro Economato oo Cinema Centrale ereedeeda ahayd marka iyo Cinema Missioni marka waxaa lagu jiri jiray marka riwaayadaha la sameey jiray oo maaragtay waxa oo la dhigi jiray kooxo fara badan baa jiri jiray waagaas banaadiriga kooxaha waxaa la oran jiray ha sheegin Stella libaaxida maaweliska banaadir marka qaab waxay wax u jiri jireen yani oo traditional ah sheeka la soo urina sheekadaas la jilaya marka ay imaanayaan teatarka waxay ugu talagaleen in hadba wacyiga markaas jiro haday noqon lahayd xurriyadii maaragtay xurriyadoonkii ama haday noqon lahayd hab dhaqan dhaqaalihi aad ka shanqarisay oo ahaa qodotadii ama beeraleydii qoladii kale oo xagga badaha kalluumaysiga iyo kuwii kale oo maaragtay reer miyiga ahaayee qolada geljiriyaasha marka dhaqamadaas intay soo aruuriyaan ama fikradaas sidee ku helayaan fikirka noocaas qof magaalo joogay oo jilaa ah sidee suurtagal ugu noqonaysaa intuu dadkii waxa ay yihiin intuu uu jilo dabadeed uu soo bandhigo uu dadkii u sheego sidee suurtagal ugu noqonaysaa horta waxaa bilaabatay yani runtii waxaan meel bay ka soo bilaawdeen dadkii markii ay magaaladii ay soo galeen miyigii laga yimid oo ciyaarihii dhaqankii wixii ay soo galeen magaaladii oo gumaystihii iyo dadkii la dhex oo la bartay waxaa la yiraahdo riwaayad iyo masraxiyad iyo la bartay iyo ay dadkii magaaladii yimaadeen kooxa iyo wixii marka kooxihii ciyaaraha hidaha dhaqanka dadkii ka soo jeedo oo aqoonta lahaa fanaaniinta ahaa iyo masraxiyay waxay galeen riwaayaday sameeyeen marka riwaayadahaas markay sameeyeen guryahay ku sameey jireen qaarkood meel qarsoodi ah qaasim hilowlow kale waqtigii isticmaalka wuxuu sameeyey waxa la yiraahdo masraxa guurguura oo had walba meelow geynaa mobile way marka masraxa waxaa lagu yaqaanaa masrax inuu leeyahay goobta jilada meel lagu yimaado goobta jilada iyo backgroundka meesha scenography-ga muuqaalada meesha lagu sameynayo iyo qalabka warbaahintaas laakiin waagaas isticmaalka ma jirin marka baahi baa keentay markaan hadda su-aashaada waxay taabanaysaa markaan casriga aynu gaarnay waa maxay riwaayad maxaa waxaan la gudbinayo dadkan ay gudbinayaan sidee bay u gudbiyaan maxay ku saabsan tahay waa maxay maaragtay xiriirka u dhexeeya daawadayaasha iyo mataqaanaa iyo jilayaashu jilaha waa maxay maxaa laga rabaa runtii marka waa marka la fasirayo waxa riwaayad waa maxay ama masraxiyad waa maxay waa gartay qalab waxaa jira runtii warbaahintii aad u isticmaalaysay xilligaas ama hadduu noqon lahaa xagga reediyoga keebaa ugu cabqarisanaa markaas qalabka la isticmaalaya xagga gudbinta fariimaha runtii waqtigii horta gudbinta fariimaha Soomaaliya markaad eegto kolo raadi Muqdisho kontonkii wixii ka bilowday waa un qalabka maaragtay xagga dawladda ama ha noqdo Talyaanigii ama wax la isku gaarsiinayay qaabab kale waa jireen oo maaragtay maxaa jiray dad
macallimiinta dugsiyadoo kale iyo dad fanaaniina iyo si qarsoodi ah ay inay wax u jilaanay dadka isugu wacaan ay ku gaarsii jireen firimaha qarsoodi bay u shii jireen lama ogolayn marka waxaan ka hadlayna hadda waxaas waa wax taariikha laakiin waxaa jira casrigii laga bilaabo hadda markii aanu helnay theater markaaynu helnay yani sideeba maxaa la jilaa yaa qofku wax jilayo waa maxay yani sidee wax u jilaan waa maxay xiriirka ma aragtay jilayaasha iyo waa maxay stage-kan la sheegayo yani taasna waa ka duwan tahay heerar buu kala leeyahay marka waxna waa taariikh sidee kusoo bilaadeen waqooyi iyo koonfur masraxiyada sidee kusoo bilaadeen dadkii soo dhaliyay hadda waqooyi oo kale walaalaha Hargeysa kontonkii bay asaasantay 13 qof bay ahaayeen maxay ku asaasantay yani Cabdullaahi Qarshi baa wuxuu ka yimid Tanzania wuxuu tagay ii sheeg cadan buu tagay 1938 markuu tagay wuxuu maalmaha kamid wuxuu dhageysanayay raadiyo ayuu dhageysanayay raadiyo marka wuxuu ka dhageysay ka dhageystay heeskii wuxuu hindi u dhageystay hindiga muusika raacsan carabi u dhageysanaa muusiku leeyahay Soomaaliya la soo saaray nin qaylinaya wandana walaanena iskala hoon muusika lahayn uu yaabay wuxuu yiri Soomaali muusika malamiya waa 38 meelaha fag buu soo yiri wuxuu ka soo degay barbar wuxuu yiri Allah ilaahay waa inaan Soomaalidu heeskeeda aan u sahay Soomaaliga waan muusika aan u sameeyo waan kaban bartaa waagartay TRO waa kaban bare halkaas ka soo bilaabay koor marka waxaa jirta balwo iyo Cabdi Sinima oo gacmaha iska heesiyo qeyn halkaas oo kaban ka soo bilowday TRO waa baray kooxo asaasay heesab u qaaday riwaayado bay sameey jireen dadkii buu sii baray waagartay marka qabkaasi soo martay hanaanka masraxiyada Soomaalida oo taariikhda soo martay waagartay halkeebay ka curiyaan ama ka dhalataa hal abuurka sidiisaba runtii hal abuurka waxaad ka wadaa yani sheekada intaan la masrax geenin la gelin waa sheeko marka ama waa book ama waa maskaxda mid ku jida Soomaalida marka waa kala duwan Europe waxaa jirta yani sheekooyinka la masraxiyada laga sameeyay riwaayadaha laga sameeyay book baa laga qoraa Shakespeare oo kala hadda 1600 riwaayadihi oo qoray Hamlet iyo maxaa la jiray wixii la mid ah yani hadda marka waa la qoraa maxaa dhaca marka buugga la soo qaadaya buuggan masraxiyad marka loo bedeliyo oo stage-ka la soo saaray sheeko loo bedeliyo nin baa bedela ninka waxaa la yiraahdaa dramaturg ani cilmigaas soo bartay dramaturg drama buugii oo dhisa sheekadii wuxuu dhisayaa baarar buu u qaybinayaa riwaayad siinsiino ka dhigaya markaasuu buuxinaya muuqaalka koowaad jilida koowaad dadkii buu ku buuxinayaa muuqaalka labaad jilida labaad dadkii markaas meesha waxaa fadhiyo ninka backgroundka scenographiga ila waa masrax meesha ninka codka ninka ifinta asagoo director ama mukhrijka soo saarka kii dhaqaalaha sheekadii marka la dhiso ayuu qaybinaya marka sheekadaas markaasuu masraxu soo saara masraxa marka la soo saara waxaa tijaaba la yiraahdaa marka tijaabada la sameynaya 3 bilood ay soconaysa dadkii baa loo qaybinaya sheekadii baararkii markaas la adiga qaybtaada soo baro adiga qaybtaan soo baro adiga maalin walba meesha la isugu imaanaya stage ku soo saara markaas waxay qaadanaysaa 3 week 2 week wala dhig marka isku dhacdo habeen premiere la sameynaya ka bacdi dadka loo soo bandhigaa riwaayadii waxa ku soo haray qaabka Soomaalida u sameeyso Soomaalida abwaankii baa wuxuu yahay boogi horta oo maskaxda riwaayadii wata inta ugu jirtaa waa midan aad u jeclaaday waxaad ka soo qaadaan ama sangub ama ducaa gutaale ama hartaan ama hableed ma guursi doonta ama cilmi caadi kulli qabiyo riwaayadii wata riwaayadii markuu fikiro oo halkan ay ku jirto maskaxda wallahi Soomaalida cilmi badana ay wuxuu sameeynayaa wuxuu qoranayaa actorski xasan samatrahay adiga waxaad jilaysaa cilmi saad adiga saas ay jilaysaa waa la soo imaan la soo fadhiisanaya dadkii wuxuu leeyahay adiga waxa leedahay intaas yaa kor ka baro oo u sheegay markaas kor ka xifdinaya haday noqon lahayd geeraarkii haduu noqon lahayd haday noqon lahayd wax walba qofka waa la xafidsiinaa oo uu leeyahay sida gaar ku leeyahay marka tii raariir waa ka duwan tahay mujada wixii la xafidsiinaa markaas meesha ku baranaya waa fadhiga abwaanki marka wuxuu leeyahay waa regista ama mukhrij ama director of the play waa gartay hawsha soo qaatay markuu inta sameeyo wuxuu u tagayaa teatrka calaamad leexaan oo dhantii Ilaahay ku naxariisto ama isha barako bara make up barako bulu Said Saad oo leeyahay intaan ii sameey kanin iiga dhig
kan turukadan igu bedel kan shanography wuxuu leeyahay maqaayad iga dhig gadaal dukaan iga dhig saasaa riwaayadda Soomaaliga u tirsan mukhrijka marka habwaanku waa mukhrij waa maarta habeeye waa isku dabarida markaas stage-ka saasi siyaar riwaayadda ku soo huusha marka waxayna ka curataa bulshada ka curataa su'aashaada ugu horeysa saasay riwaayadda waa wax laga soo qaato bulshada ee loo bedelayo masraxiyad la soo saarayo dadka la barayo la tusayo marka abwaanku wuxuu ku dhex jiraa bulshadii dabadeed wuxuu eegayaa hadba sida ay dareenkoodu uu yahay iyo waxa ay rabaan kadibna uu ka turjumayaa arrintaas ayada ah marka ma jirtaa qoraallo laga sameeyey iyo riwaayado laga sameeyey aamin ay yiraahdeen qoraal dhaxalgal ah oo jiilalka dambe ay ka faa'iideysan karaan oo laga sameeyo ama buugaag ha noqoto ama documentary ha noqoto ma jiraan wax laga sameeyey intii aad joogto ma jiraan sababtoo masraxeena يعني أقون أمله دولة وزارة الفافين مسرح ما تقانو وزير كماشة لقي مسرح ما قرانيو أقاسمها جود مسرح ما قرانيو مسرحية ما رأيها تترك اللودي في مسرح ما قرانيو ضدك جوجد مسرحية دي لما قرانيو يعني مسرح رواية دي إلا قرو أول الديوان قليو ويوح الله حبي وح والبو سكولرشيب إن لو درا وح برشو إن ضدك اللي برا فناني أطوارها يتري جلياش إلا برا سيد الله قرو wax sida wax loo akhriyo in wax barasho loo diro habka wax loo jiro waxa la yiraahdaa theory and practice of acting jiro iskoolad baa laga bartaa drama tijaabadii aragtida jilida la soo baraya aflaan bay sameynayaan waxay marka waa adag ilaa hadda ma ahayn aniga 28 waxaan qori jiray xidigta October bogga masraxa iyo fidinta fanka la oran jiray halkaas ugu dhow hadii hadda macluumaad laga raadinayo masraxii يعني حاجة مسرحية ده مركل قاعد ليه أنا ما إيه فنان ما إيه ما أنا إيه سا لكن حاجة علمي سكو كوابن سكو يعني مسرحية واقرتي مركا إن كهل إنه سان كور قبل هذا مجرى ديوان قشن أو أما وزارة دي ورفافين تهور أي كتكتي أما ضدك أي كتكين قالوا حاجة هذا النور أبوان ندي سميه رواية ده صورة قال متى إن بواق لقى سميه أو لا حرير أو مركز مسرحية دي أي سميين حلي جاس dib loo jiro oo markaas hab filmeed loo sameeyo waxaad kala saaraysaa buugagta gooni way had shabeelnaagooda kala buug oo ahaa waraf iyo shimbira la isku kala dhowra war isuma hayaan buug buu ahay waa akhriyay aniga Germany baan ku akhriyay shabeelnaagooda waa akhriyay cilmi waxaan u malaynayaa qabrigii jaceylka buugga inuu jiro laakiin waxay u jiro waa buug waa riwaayadii diyaar ah u baahan stage in la soo saaro kaliya laakiin waxay u baahan tahay nin dramaturg ah habeeye guud la yiraahdo ee buugga u bedelayo from ila laga man buug ila riwaayad u bedelayo habka cilmigaas waa la bartaa waa gartay waxaad daawadaal waxa xusuusin iga mudan in aad weli nagala soo xiriiri kartaan qadka taleefanka oo markaasi waa sugo caawa martiga studio Soomaali Cable wax ka weydiin kartaan habka masraxiyada iyo tiyaatarka oo in muddo uu ku soo dhex jiray runtii wax badan oo ka soo qoray waa sugo waa wariye ka tirsan SNTV lehna barnaamijka waa arag soo saaray barnaamijkii farbarashada af Soomaaliga runtii dad badan oo Soomaaliyeedna ka caawiyay barashada afka Soomaaliga haddaan ku soo noqono barnaamijkeenan suugaantii Soomaali Cable waxyaalaha aan ka rabo inaan ka weydiiyo waxa kamid ah marka ay ka waran goobta jilida iyo muuqaalada dambe yaa u xil saarnaa runtii teatarkii xamar runtii masraxii xamar wakaaladii murtida iyo madadaalada xamar inta magacay xambaarsantaan jeclahay way kala qaadeen murtida iyo madadaalada waxa la yiraahdaa madadaalada xamarka iskala murtida Hargeysa leh qosla ari waa fiiriyo boogta war kulli murtida waa wada leedahay madadaalada wakaalada murtida iyo madadaalada baa la oran jiray teatarka masraxa qarankana waa la yiraahdaa inta aanan murtida madadaalada aanan u gudbin qadka taleefanka ayaa halo assalaamu calaykum magacaaga halkaa joogto walaal magacaygu waa maxamed cabdi aadan murtiyo madadaaladana murti waxaa leeyahay Hargeysa wareha Soomaaliland noolaato waa maasantaa walaal waayahay murtida madadaalada aan jeclahay Soomaaliland noolaato waayahay taleefanadii ayaa bilowdaan filaya halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga halkaa joogto walaal waxaan joogaa Kenya xasan baliina xasan kusoo barnaamijka suugaantii Soomaali Cable caawa marti waxa igu ah waa suge oo kamid ah bahda warbaahinta TV-ga qaranka in muddo aan ka hadla masraxiyada iyo masraxa caawa maxaa jeclaan lahayd weydiin lahayd waxaan cawda keenay ana umada aynisha wariyaasha amale
Soomaaliland mar walba waa yani aad aga soo horjeeda aniga intaas ma ku dhiinaa ما فاهمين كوعلي ولا حسن ودي waa kuu soo celina waxay ku xeedo oo kuu soo celina واي حسن waxaan filayaa inuusan aan isfaham ismaqli weyne waayahay marka aan ka hadlayno marka murtida madadaalada oo in xilligaagii aad joogtay oo masraxiyada iyo sida ay ahayd xagga sameynta muuqaalada dambe ayaa u xilsaarnaa runtii masraxii qaranka Soomaaliyeed ama teatarkii hobolladii waa bari idima loobi karno hobolladii waa bari halkaa bay naga yaaleen kuwii hore kuwii dambe waa barigii hore waa barigii dambe runtii masraxa qaranka Soomaaliyeed wuxuu u qaybsanaa yani qaybta jilayaasha qaybta abwaanada qaybta muusikada qaybta folklorka iyo qaybta xisaaba iyo maamulka guud intaas buu qaybsanaa marka qaybta masraxa farsamada marka timaado goobta jilida marka timaado yani muuqaalada dambe oo scenographiga ah ama scenographiya waxa u qaabilsan cali maleexaan ilaahay u naxariisto Germany ku soo bartay oo muuqaalada dambe waxay ka turjumayaan riwaayadda marka la jilayo oo meesha waxay haddii guri tahay gurigu gadaal ka sameynaya oo masawiraya hadday maqaayad tahay maqaayadii kuraasna waa la soo dhigayaa ama maqaayad oo kale uu ka sameynaya marka wuxuu u qaabilsan yahay goobta inuu qurxiyo goobtaas muuqaalkaas ay ka turjumayso muuqaalka sheekada waxa ay ku saabsan tahay ay ka turjumaysaa marka scenography baa la yidhaha yacni waana shaqo badan u lahaa waad garan kartaa marka masrax waxaa waaye iska yacni bilow ah waa keligiis waa qof kale cilmigaas oo ma baran waxaa kaloo jira wax la yidhaha cilmigan la yidhaha make up ama muuqdoorinta baan la oran jiray muuqdoorinta waxaa sameyn jiray salaad barakow buluw ilaahay u naxariisto Germany ku soo bartay make upka yacni waaye qofka marka waaye laga dhigayo garka iyo meelaha iyo waxa wajiga laga bedelay waxyaabaha uu ku magacaabay ifinta waxaa sameyn jiray iftiinsha Axmed iftiinsha la oran jiray asagana codaynta ma xasuusto marka yacni waa saas isku wararkabiin marka riwaayadii sheekadii oo meesha socota muuqaalka daah baa jira marka la deynayo daahaas waxaa marka wax la bedelay gadaal laga bedelay hore waxa soo istaagi jiray awkombe awkuku sooraan ziyatom waxay dadka sii maaweelinayaan inta gadaal wax laga bedelayay marka ay maaweeli jireen marka waxaa jirta daawadayaasha iyo xiriirka daawadayaasha iyo sheekada yani waxaan ku jeclaadaa hoblada waa bari waxay soo jiidan jireen markay soo fuulaan stageka daawadayaasha yani waa sheekadii bay dhexgelayaan markaasay fariimaha u gudbinayaan markaasay fariimaha waa gartay markaan usoo noqono xagga tababarada iyo waxbarashada in loo fiday jilayaasha iyo kala duwan ee fanaaniinta yaa u xilsaanay wasaaradda wakaaladda murtida madadaalada mise wasaaradda warfaafinta wasaaradda waxaa tababarada dibadda ee ku saabsan xagga jilidda iyo aqoonta ifinta iyo muuqdoorinta iyo dhismaha muuqaalada iyo kulliyo wasaaradda warfaafintu waxay leedahay xafiis la yiraahdo xafiiska qorsheynta xafiiska qorsheynta ayaa wuxuu u raadinayaa markii laakiin maareynta guud ee wakaaladda murtida markay soo gudbiso ay tiraahdo waxaan u baahanahay laba qof noola soo baraha sida wax loo jiro hal qof waxaan u baahanahay in codaynta soo barto hal qof ifinta noogula soo baro oo maareeyaha guud ee wakaaladda sida cabdidhuux oo kale hadda inuu gudbiyo oo qorsheynta qoraalka u gudbiso oo codkaas qorsheyntii marka way raadinaysaa safaaradaha kala duwan bay galaysaa oo wasiirkii bay u taga agaasimaha qorsheynta wasiirku kala hadlaa arrintii wixii ay xirxirayaan markaas safaaradihii dowladihii lala xiriiraa saasaa wax loo processkaasaa loo maraa loo soo dhameeyaa ka waasuga ahaan hadda ma qortay erey bixintaas af Soomaaliga runtii af Soomaaliga wuxuu ka mid yahay waxyaalihii dhibaatada ku dhacday adiguna qofka waxaa tahay in muddo ka soo shaqeynaya howlahan erey bixintaas loo isticmaalay ereyooyinkan ah ifinta codbaahinta jelista waxyaalahan oo kale si uusan afki u lumin suurtagal ma tahay inaad adiga qudhaada buug ka diyaariso dadweynaha usoo gudbiso runtii horta waa sameynay markay buugaan qornay 84 aniga aan soo ururiyey cabdixaashi cabdullaahina waa dhegeysanaya hadda gudoomiyaha guddiga saxaafadda ah maareeyaha wuxuu ahay wakaaladda murtida madadaalada cabdi waa ku salaamay buugaas waxaan soo ururiyey sheekooyinkii ugu qosolka badnaay ee aan ka soo ururiyey xuseen oo faarax iyo dadka yani majaajil yahanada kala duwan oo sheekooyinka qosolka yahay baan soo ururiyey cabdixaashi cabdullaahi waa aqbal waa saxiixay madbacadda lagu dhaacay 84 koobi aniga hadda haystaa wixii kalena xamar baa laga helayaa waxaan kaloo sameeyey waxa la yidhaha qaab dhismeedka teatarka iyo erebixintaan sameeyey waxaan dhigay xafiiska mataqaana maamulka ay ku jireen
waa ka shaqeeyay waxaas waa habeeyey 82 ilaa 3 baan habeeyey waa xasuustaa marka laakiin weli teatarkii wuxuu u baahan yahay in loo soo jeesto oo teatarkii wax loo qabto oo teatarkii waa wasaaradda warfaafinta waaxda qorsheynta iyo maareeyaha iyo la kaalmeeyo ee fanaaniin fara badan oo heesaa ah oo hoballa iyo erebixin badan baa sameeyay heesaa oo markay heesayaan say u jilayaan aad yaabaysa aan fiirsato aniga hadda raadi muqdisho ka daawaday SNTV waxay u baahan yihiin in la geeyo dibadda lasoo bara atooranimo in la bara yaa jilaya taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa gartay yaa jilaya taariikhda ummadda Soomaaliyeed yaa aflaanta jili doona waa gartay maadaama marka hadda dadka Soomaalida ay dibadda u soo baxeen wax badan ay ka barteen cinematographiga iyo jilista waxaa jira filimaan dhalinyaro Soomaali isku dayeen inay sameeyeen sidee u aragtaa adiga filimaantaas waxna ma ka daawatay waa aniga ma oran karo film runtii waa riwaayadihii oo kala waaye markay waxa ka maqan cilmiga film sameynta baa ka maqan markay dhalinyarada wax jirayso sooma baran yani jilida sooma baran director hogaaminta mukhrijnimada sooma baran ifintii sooma baran script dramaturgy sida shaqo text looga shaqeeyo loo habeeyo sooma baran يعني goobta lagu qaadayo leen filmka waa mobile waaye teatarkana waa meel joog stagekiisa waa meel kaliya laakiin filmka waxaad ku jiraysaa goobo kala duwan aad ku jiraysaa goobaha kala duwan waa inay ku habeyseen script baa jiro waa in ifintii aad ka fikirtaa waa in qofkii costuumka waxa uu ku sheekaysan yahay marka ma oran karo waa film waa laakiin hadii la rabo waa la iska dhigi karaa film cilmi caadaba waa film waa gartay marka masraxiyada aan dib ugu soo noqono ka Soomaali ahaan runtii burbur fara badan ay gaaray هذا التياتر كهرجيس وكلا ولي مسوق بانين كي مقدشوا وبابا أو كسيليتا ما دام إن دور مسرحيات ده إيو مسرحات واحد بدن كوجي تياتر حد سوي جدين له كواسيق أهان runtii aniga waxaan soo jeedi lahaa in horta duruusta dugsiyada laga dhigaa suuragal hadday tahay meelaha wasaaradda waxbarashada wasiirka inuu ku dadaalaa dugsiyada iyo iskoolaadka hoose in caruurta la baraa yani jilida la baraa sheekooyinka yararka xoolaha inay jiri karaan dawacada iyo dhowaaga iyo waxyaalahaas la baraa in yani duruusta yani teatarada masraxa iyo taariikhda masraxa iskoolaadka in laga baro caruurta iyo dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare in lagu faafiyo laga masraxa waa aasan yahay aqoonta masraxa aad bay u aasan tahay waa gartay maadaama hadda xilli kala guur lagu jiro oo runtii xilli soo kabasho lagu jiro oo dadka Soomaaliyeed ka soo kabanayaan dhibaatooyinkii dhacay dadka qurba jooga ahna in muddo ay dalka ay ka soo maqnaayeen ma isleedahay halkan waa lagu sameyn karaa barnaamij caruureed ama barnaamijyo kale oo masraxiyada ah oo dadka wax loogu sheegi karo arrintaa dee waa lagu sameyn karaa haddii ay jirto jaaliyad midaysan sida Bakistaanka oo kale iyo Hindida oo kale iyo Bangladesh oo kale hal jaaliyad oo awood leh oo dadku idil ay hoos imaanayaan barnaamijyada noocaas oo kale oo dhaqankii bandhiga dhaqanka iyo waxbarid caruurta iyo ciyaaraha hidaha dhaqanka iyo oo isku maalmo u sameeyso axad kasta howl qabata ciidaha waaweyn dadka u soo bandhigtay hidaha iyo dhaqanka wixii lamida dibadda waxaan laga sameyn karaa mal haddii dadka ay midaysan yihiin ay isdoonayaan ay israbaan Soomaalidu wax waa qabsan kartaa hadday kala jeesato laakiin ayada hadda isku soo jeedo laakiin waa suuq miyaan la oran karin waxa loo meel ay ka bilaawdaan qof ayaana bilaabo miyaan suurtagal ahayn haddii aad adiga ka waasugahan aad u istaagto oo aad markaas tiraahdid waxaan bilaabeynaa in masraxiyadii aan dadka Soomaalida tusno af Soomaali lagu sheego runtii waa suurtagal caruur badan barnaamijka waxaan isku dayay ii sheeg way arag inaan soo fadhiisiyo caruuro kala duwan oo qaybo kala duwan leh language-ka aan baray magacyada xoolaha aan baray oo la sheekaystay oo waxaan meeshaas waxbaan u ifiyay waalidiinta Soomaaliyeed ama qurba joogta Soomaaliyeed in caruurta lala fadhiisan karo oo lala sheekaysan karo oo wax la bari karo laakiin arrintaa waxay ku xiran tahay abaabul guud iyo isku dabarid guud iyo guddi weyn oo guud mahana shakhsi kaligiis aniga waa keeni karaa markaan arko hadda jaaliyadda hadda markii la aasaaso la dhiso dabcan wax weyn baan qaban doonaa oo masraxa ku saabsan bandhiga dhaqanka hidaha maxaa la yidhaha ciyaaraha hidaha dhaqanka sheekooyin masraxiyad ku saabsan xoolihii wixii haddaan helna marka jaaliyad noo habaysan
oo dhaqaalihii iyo xafiis meelihii iyo qalabkii iyo wixii noo habeyn karto laakiin shakhsi keligii ordaya aad bay u adkaanaysa laakiin aniga weligii kama saxan waa la gaarayaa insha allah ilaa digis waa gartay waa si oo soo noqonayna qadka taleefanka ka jawaabayna halo salaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga halkaa joogto walaal waxaan joogaa ma markii meesha laga hadlayo qatara saxaga la qosla caawada in la qoslo ma rabaa waay walaal si fiican kugu maqlo qadka taleefanka xunaan filaya waayahay waa taleefon aan maqli weyn runtos maqli weyn hawada ayaa xunaan filaya waayahay markaan usoo noqono marka xagga tabinta iyo baraarujinta dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira caalamka ku kala daadsan oo runtii waxyaalo kala duwan sameeyay riwaayadihii ugu cajiibka badnaa intii aad joogtay halkan ay daawatay ee la soo sameeyay qurbaha lagu sameeyay teebaas oran kartaa xagga masraxiyada way ku wanaagsanayeen runtii riwaayadaha theater lagu masmeyn waxaan u maleynayaa dee guri ani waxa qabyo waxa lagu sameeyay Canada u maleynayaa qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad barnaamijana ka sameeyay waxaan uga sameynayaa xagga jiilada waqtigan hadda wax la jilayay iyo 30 sano ka hor hablaha ma guursi doontaa ay qosolada baqtaysan dhinacaas aan ka fiirnay oo aan critic kale aan ku sameynay iyo sheekad waxay ku saabsan waxay gudbinaysa iyo dadka dhaqaaqa soo wax u jilaa waxaasaan fiirinay runtii laakiin ma u malaynaya hadda in masrax riwaayada lagu sameeyay oo aniga ma gelin mana arag haddii London la keenay inay jiraan hadday jiraan kolley waxaa loo sameynayaa qaab ka wanaagsan ma la heli doona amalna waa berigi wax u jili jiray runtii marka jiladis laakiin waxaa hadda soo baxaan maqlay inamo ama dhalinyaro America ku nool oo yacni xagga yacni Hollywood iyo actors noqday oo aflaan jilida way qaatay oo jilida ka qayb qaato oo aflaan waaweyn sameeyaan maqlayay raggaasaan wax ka sugaynaa inay academy meelo inay furaan ama school of acting wixii lamid inay sameeyaan marka kolley hadda arrimahaas waxay la burbureen dalkii dibadda waa la rajaynayaa in la furo school iyo wixii lamid ah laakiin xogaa waxaad moodaa inay waqti qaadan doonto iyo isu imaasho iyo wada hadal iyo horta waxaan yaa sameey karo Soomaalida hadda isdhacyac baa jiro oo jahawreer dadkan baan u baxshay runtii in horta la yiraahdaa groupka yaa linguist ah yaa tiya wax fahmay theater ah yaa yani culture wax ka fahmaa yaa suugaanti gabayadii in la ururiyo akademiyada fanka cilmiga suugaanta hadda hawsha ay wado oo dib loo ururiyo bal waxa la habeeyo waxyaalo badan baa waa burburnay ever baynu noqon markaan dib u eegno golihii murtidii madadaalada runtii wuxuu u baahan yahay in laga soo kabo dhinac walba oo ku saabsan xagga ma aragtay suugaanta masraxiyada soo saarista iyo wax u sheegid dadka abwaana hadda waxaa jira dalka ku haray runtii wax xiriir ma yeelateen intii aad qurbaha joogtay runtii kolley ayagun baa iga dhageystaan u malaynaya telefishinadii waxaan aan ka sheekaynayo dadka yacni dhibaatooyin badan baa jiro oo maaragtay xagga nabadda ay ugu maanta teatar aad buu adag yahay in la sameeyo xamar aniga waa garan karaa abwaaniinta xamar waa is ognahay arrimaha waa ka sheekay dad badan baa la xiriiray xagga nabadaan ugu wacan markay riwaayada la dhiga marka la yiraahdo riwaayadihii waagii la dhigi jiray daa xasuusta safaa la geli jiray teatarka galabtii afarta birkil gaar waxaa arkaysaa saf halkan ilaa ma aragtay maxaa la yiraahdaa 2 mitir 3 mitir marka lama sameyn karo waad ogtahay bandhigii hadda wax nabadii wax sugaya male waa ogtahay marka xoogaa waxaad moodaa masraxiyada iyo aflaamta iyo xamar iyo inta laakiin nabadda laga gaarayo waxay ku wanaagsan tahay in la sii kariyo daragii in la sii habeeyo la sii bisleeyo oo scholarship waxaan aad ka codsanayaa in dadka wax la baro fanaaniinta hadda waqtigan wax qoridda akhriska waxbarasho loo diro dhalinyaro badan oo markay heesayaan say wax u jilayaan oo impersonation markay sameynayaan oo heesayo markuu ama wadani ka sheekayna gacmaha iyo movement dhaqdhaqaaq oo sameynaya aad yaabaysid oo agtara ah ka buuxo xamar abwaanaha jooga dadkii hadda in la habeeyo la ururiyo oo ay u baahan yihiin qadka taleefanka qabanayna halo salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله. magacaaga halkaa joogto la والله magacayga cali geelle baa la yiraahdaa waxaan joogaa Australia waddanka la yiraahdo Tirol gobolka aan kasii joogaa mafaatay oo adiga martida ku martida
aad iyo aad u mahadsan tahay caawa barnaamijka suugaanta Soomaali Cable waxaan kaga hadlaynay masraxa iyo masraxiyadda waxaana marti ah professor Waasuge maxaad jeceshahay weydiin lahayd waa salaamaya professorka runtii gooni ahaan midda kale waxaan cudurdaar ka bixinayaa dhalinyarada inay waqtigooda kusoo fasaariyaan haddana yani anshaxumada ka bixinaya tv-ga Soomaali Cable su-aasha aan rabo inaan waxay anigu reer muqdishoan ahay laakiin qof dhalinyaro ahay oo kuma soo gaarin xilligii tiyaatarka oo calashaan aqoon gooni ah oo dheeraada yani umalihi laakiin wax badan baan ka dhageystay oo aan ka fiirsaday dhaqamadii iyo suugaantii lagu soo bandhigi jiray iyo sidii dadku iskugu xidhnaayeen inkastoo waddanka uu nabad ahaa marka taas waxaan rabay inaan hal su-aal ka weydiiyo oo ah calashaan kadib ma jirtaa dadkii maadaama Yurub la wada yimid oo soo wada cararay waddankiina dagaallo ay yani ku daba dheeraatay kadib ma jirtaa calashaan in waddankii tiyaatarka dib ugu soo laabto oo maanta aan aragno dadkii oo sidii iskugu xiran iyo kooxihii waa beri kuwa lamid tahay oo dib u shaqeynaya waa garta aad u mahadsantahay Cali Geelle su-aashaas professorkaan weydiin doonaa Abdulcali ma jirtaa rajo ah inuu dib u soo laabto tiyaatarkii iyo in la helo kooxihii wax jili jiray Soomaaliya Cali Geelle waa mahadsantahay Austria Dankeschön das die mich diese Frage gestellt haben waad mahadsantahay su-aasha aad weydiisay af Jarmal ku hadlaa ogaa Austria runtii wax walba dib u soo noqonaya ma ahan teatarka kaliya waxa teatarkii dib u soo noqonaya riwaayadii baa soo noqon doona aqoontii baa soo noqon doonta masraxiyadii baa soo noqonaysa dhismihii baa soo noqonaya wax walba soo amaamka soo noqonaya rajada lagama quusto waxaan ku sheegayaa waa soo noqonaynaa Soomaaliya will be back on track dib ayaan gaariga u soo wada fuuri doonaa waana arki doontaa insha Allah ilaa dagis waa gartay Waasuge haday waxaad ka shaqaysay in buugaag ay jiraan aad haysid buugaagtaas ma laga yaabaa wasaaradaha sida wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo kale inaad uga faa'iideysid si masraxiyadii wax loo maaragtay dadkii looga faa'iideeyo runtii buugaas waxa waaye waa majaajilo ku saabsan yahay majaajilooyinka kaliya wax kale ma ahan la soo ururiyay laakiin waxa ku filan de Puntland iyo Jubbaland iyo maamul goboleedyadu runtii inay iyo galmudug iyo maxaa la jiray meel walba inay yani duruusta lagu daro ilmaha iskoolaadka in la wixii hadda ka dambeeya inaad yani xoogaa caruurta la baro masraxa iyo jilidda iyo looga sheekeeyo hidaha dhaqanka ciyaaraha hidaha dhaqanka iyo sidaa baa loo samayn karaa waa gartay ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka intaan gabagabayn ka hor maxaa dardaaran oo xagga masraxiyadda ku saabsan iyo tiyaatarka ummadda Soomaaliya guud ahaan u sheegi lahayd waa tahay runtii dardaaranku wax kale ma aha tiyaatarka waa miraayadda dhaqanka iyo hidaha dhaqanka miraayadda dhaqanka iyo ilbaxnimada iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed laga arka laga daawado ciyaar ma ahan tiyaatarka dadka qurba joogta tiyaatar haddaad gashaan laba goor aan meeshaan ku galay tiyaataradu yani waxay soo gudbiyaan marka waxaa la soo saarayo waa aragti taariikh dheer leh ayaa taariikhda idin baraya tiyaatarka waa macalinka taariikhda waa meeshaad ku fikir jibinaysaan waa meeshaad wax isku dhaafsanaysaan waa meeshaad ku baranayso bulshada nolosha waxa ka socda oo kale ah sida dadka u dhaqbaan sida dadka u labistaan iyo wixii lamid ah tiyaatarka yani ka qayb qaata Soomaalida qurba joogta gudiyadooda kala duwan inaad caruurta communitieska inay habeeyaan meelaha isu keenaan ee xoolaha ku ciyaarsiiyaan ee baraan sida wax loo jiro macallimiinta iskoolaadka waa la sameeyaa assembly baa jira waad ogtiin iskool kasta oo ka furan Europe ama America ama meel walbo ilmaha waxay sameeyaan usbuucii once a week assembly ilmihi la soo galaas walbo ato sheekay jilayaan marka maxaa loola jeedaa ilmaha waxa lagu sii tababarayaa sida wax loo jiro iyo masraxiyadda Awees Maxamed Waasuge runtii aad mahadsan tahay fursadda qaaliga caawa Soomaali Cable aad nagu siisay barnaamijka suugaantii Soomaali Cable runtii waxyaalo fara badan waad maaragtay iftiimisay وهكذا waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena suugaanta Soomaali Cable waxaan ka mahad celinayaa dhammaan dadweynaha nagala qayb qaatay xagga farsamada Maxamed Yare iyo Cabdisamed iyo Mustafa ayaan leeyahay iyaguna qayb lixaad ay ka qaateen intaan hawa dib u kulmi doono xagga tabinta waa anigoo Cabdi Qaadan Geedi waxaana caaw marti ahaa Awees Maxamed Waasuge oo soo ka tirsan bahda warbaahinta Soomaali National TV soona soo saaro barnaamijka waayo arag
horeyna u sameeyey farbarashada af Soomaaliga iyo naxwaha af Soomaaliga intaan hawada dib dib ugu doon saar maqalkeena dambe waxaan idinku dhaafayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh